iyada oo maanta guud ahaanba Somaliland looga fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo sidoo kale kuwa dhexe ayaa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa saaka imtixaankaasi ka dahfuray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Somaliland oo ay weheliyaan xubno ka mid ah wasaaradda waxbarashada ee Somaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka Awdal. ugu horeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay tirada guud ee maanta u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ee guud ahaanba Somaliland ayaa waxa uu yiri gobolka Awdal ka furana imtixaanada ka dhacaya Somaliland guud ahaan oo ay galayaan maanta 32,000 oo arday oo isugu jira 33,000 oo arday oo isugu jira 22,000 oo dugsi dhexe iyo 12,000 oo dugsi sare waxa ay ardaydaasi ku galayaan 707 iskuul oo Somaliland ku yaala waxaana ka qayb qaadanaya 4,000 oo hawlwadeen oo isugu jira macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa kormeerayaasha kaaliyaasha ilaaliyaasha madaxda goobaha waxbarashada ciidanka maartay ammaanka sugaya gaadiidka iyo guud ahaan hawlwadeennada ka qayb qaadanaya marka waxaan hadalkan uga faa'iideysanayaa in ardayda aan marka u horeysa aan u hambaliyeeyo imtixaan wasaaraddu ay sameysay xafiiska imtixaanaadku sameeyay oo dibadda u soo bixi kara ma jiro anigoo wasiirkii waxbarashada ayaa marka hoolka aan galo imtixaanka buugaagta dibadda la iga dhigayo waraaqaha iyo waxaan sito anigoo saa u faramaran baan galaa waana ka soo baxaa waraaqaha markaa wasiirkii sidaa dibadda looga dhigayo cidda kale odhanaysa imtixaan baa la helay warkaa dhegeysanina waa malaawaal iyo wax la idinku jahwareerinayo waan u hambaliyeenayaa mar labaad ardayda iyo hawlwadeennada xafiiska imtixaanaadka ugu horeeyo dhanka kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal waxaana uu tilmaamay waxbarashada mudane Axmed Maxamed Deeriye Toorno warna haanti farxad weyn noo tahay in nagala soo qayb galo loona dahfuro goboladii oo kale aan dheernahay maanta in wasiirku noo furay waxaan rajaynaynaa in ardayda dhammaantood gobolka Awdal ay guuleysan doonto ay noqon doonto kuwii ugu wanaagsanaa ee gobolada maadaama lagu xanto gobolka aqoonta inay tahay waxaan leenahay ardayda istajiya si qurux badan uga shaqeeya farintaan dirayna waxa weeyaan wax kasto qasha ka fogaada moobiladu waa mamnuuc waxa aynu inoo bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa dugsiyada sare iyo kuwa dhexe guud ahaan gobolkayaga Awdal waxa ku galaya 4,042 arday ayaa imtixaanka u fadhiisanaya oo u kala qaybsama 2,492 dhexe iyo 1,500 oo sare waxa ay ku galayaan 29 goobood iyadoo ay ka hawlgalayaan shaqaale dhan hawlwadeenno dhan 307 oo isugu jira ilaaliyayaal madax goobeedo iyo ciidanka booliiska shaqaalahaas wuxuu dhan yahay 307 waxaan u rajaynaynaa ardayda reer Awdal inay guuleystaan insha Allah waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka badda cas 24 TV magaalada Boorama.